xafladani maanta iyo caawa waa soo dhoweyn sida loo sheegay runtii hadalka iyo khudbadaha xooggoodii waxaa loo daastay berrito insha allahu tacaala baa loo daastay wasiirka hordhac waxaan leenahay soo dhowow deegaankaagii dadkaagii dhulkaagii meeshii aad adigoo carruura joogi jirtay ku soo dhowow aad iyo aad baannu gacmo furan baannu kugu soo dhowaynaynaa soo dhowow baannu ku leenahay waxaannu kuu rajaynaynaa runtii guul dadweynaha reer dhahareedna iyo weliba dadweynaha kaleeto iyo odayaasha iyo haweenka iyo maxaanku dhaha cuqaasha iyo dhallinyaradaba oo ka timi khaasatan hareeraha gobolkan Highland iyo gobolka Sanaag labadaba waxaan leenahay idinkana waa idinka mahad celinaynaa soo dhoweynta diiran ee aad wasiirka halkan kala qayb gasheen aad iyo aad baad uga mahadsantihiin gobolka Karkaarna waxa weeye qada sharaftii iyo soo dhoweyntii iyadana runtii aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa khaasatan boqor burhaan boqor muuse oo waftiga wasiirka iyo waftigiisa soo dhoweeyey qada sharafna u sameeyey aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin guul baan idiin rajaynayaa sidaa wasiirku sheegay dadku waa dad walaala ah guud ahaan Soomaali oo dhan waxaa loo baahan yahay amniga in laga wada shaqeeyo nabadgelyada ayaa wax walbana koow ka ah nabadgelyo markii la helo ninkii siyaasiga oo kursi doonaya kursigiisii waa suuro gelaya dadweynaha ama shacabka oo horumar doonaya horumarkooda way helayaan qofkii shakhsiga oo dan gaara leh waa helaya laakiin haddii la waayo waa lagu wada caana waayaya waxaan idinku boorinayaa dadweynaha reer dhahareed iyo inta xafladdan joogtaba nabadgelyada inaad gacmo furan ku soo aad u adkaysaan baan idinku soo dhoweynaya